dilaaga dahsoon ninka dila dadka isjecel. taariikhdu waa 22 bishii Febraayo sanadka 1946. goobtu waa magaalo yar oo lagu magacaabo Tuscana oo u dhaxaysa magaalada Texas iyo Arkansas. dhacdaduna waxay ku saabsan tahay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Jamie Hollis iyo gabar saaxiibtiisa oo lagu magacaabo Mary Jane. waxayna ka soo baxeen shaneemo ay filim ka soo fiirsadeen, waxayna soo kaxaysteen gaarigooda oo bannaanka u taagnaa, waxayna u dhaqaaqeen dhinaca guriga Mary. meel guriga u dhow ayay taagteen gaariga, iyagoo aanan weli kala tegin ayay la kulmeen nin aysan garanayn oo wejiga xiran. wuxuu indhaha kaga qabtay toosh if weyn, sidoo kale bistoolad ayuuna xaggooda u soo fiiqay. wuxuuna taagan yahay daaqada Jamie, si degan ayuuna ula hadlay. ma rabo inaan ku dilo, samee sida aan rabo, hadalna ha igu soo celin. wuxuuna ku amray inay gaariga ka degaan. sidaas kadib waxa uu ku qasbay Jamie inuu siibo surwaalka, tooshka ayuuna indhaha kaga hayaa, bistooladuna madaxiisa ayay ku aadan tahay. si degdeg ah ayuuna 2 jeer madaxa ugaga dhuftay qaybta dambe ee bistoolada. dhulka ayuuna ku dhacay, wuuna suuxay. intaas kadib waxa uu isku dayay inuu kufsado Mary, uuna ka qaado boorso gacmeed ay sidatay. waxayna ku baraysaa inuu iska dhaafo oo faraha ka qaado, balse madaxa ayuu kaga dhuftay, dhulka ayayna ku dhacday. iyada oo wareersan ayay istaagtay, wuxuuna ku yidhi iskaga carar meesha. warkiisa ayay maqashay, waxayna bilowday inay orado. waxay xidhan tahay kaba cirba leh oo aan lagu ordi karin. 10 tallaabo inta aysan qaadin ayuuna soo qabtay, madaxa ayuuna kaga dhuftay bistoolada. mar labaad ayayna dhulka ku dhacday. waqtigaas waxaa indhaha kala qaaday Jamie, wuxuuna u orday dhinaca waddada. gaari soconaya ayuuna gacanta u taagay. dembiiluhu markii uu arkay leyrka gaariga u istaagay Jamie, waxa uu orday dhinaca kaynta. Mary iyo Jamie-na waxa la geeyay isbitaalka oo ay ku jireen 12 maalmood. labadoodaba lafaha madaxa ayaa jabnaa, sidaas ayayna muddo ugu jireen isbitaalka. kusoo dhawow go'aanso channel. haddii aad ku cusub tahay channelka, taabo subscribe si aad u hesho muuqaaladeenna cusub. sidoo kale like saar muuqaalkeenna si aan u gaarno asxaab badan. aan u soo laabano muuqaalkeenna. sheekadeenna maanta waxay ku saabsan tahay nin lagu magacaabo dilaaga dadka isjecel. waxa uu ahaa nin argagax ku riday bulshada ku nool Texas. dilalka uu geystay waxaa loo diiwaangeliyay inay yihiin kuwii ugu horreeyay ee gobolka Texas ee dowladdu ku guuldarraysatay aqoonsiga iyo qabashada dembiilaha fuliyey. magaalada Tuscana waxay caan ku ahayd bartamihii qarnigii 20aad inay tahay magaalo qalalaasa badan. dilalka ka dhaca iyo dembiyada kale ayaana si weyn ugu baahay. sidaas darteed weerarka lagu qaaday Jamie iyo Mary, booliska waxa uu la mid ahaa dhacdooyinka maalin walba soo gaara. xataa bulshada dhexdeeda dhacdo caadi ah ay uga muuqatay. laakiin hal bil kadib waxaa dhacay weerar cusub oo dilal sababay. arooryo Isniin ah 24 bisha 3 sanadka 1946 ayay boolisku ka heleen meydka 2 qof oo laba iyo dhadig ah. kan hore waa nin lagu magacaabo Richard, kan labaadna waa gabar lagu magacaabo Polly Ann. meydkooda waxaa laga helay gaari noociisu yahay Oldsmobile oo yaala suuq loo yaqaano jidka mucaashaqiinta. Richard iyo Polly labadaba madaxa ayaa laga toogtay, weliba xagga dambe. meydka Richard waxa uu yaalay labada kursi ee hore dhexdooda, jilbaha ayaana dhulka u yaalay. labada jeeb ee surwaalkiisana way rogan yihiin oo waa la fahmi karaa in la baadhay. halka Polly meydkeeda laga helay kuraasta dambe ee gaariga. shayga keliya ee ay boolisku garteen waa in labadoodaba lagu dilay bistoolad nooceedu yahay Colt 32. waxayna ahayd ugu yaraan in la arko raadka dilaaga, lana aqoonsado dhinaca uu ka yimid iyo meesha uu aaday. laakiin nasiib darro, habeenkaas roob xoogan ayaa da'ay, kaas oo baabi'iyey dhammaan raadadkii la raaci lahaa. maadaama aan lahayn caddaymo fududaynaya aqoonsiga dembiilaha, boolisku waxa uu ku qasbanaa inuu sameeyo baadhitaan baahsan, uuna waraysi ka qaado dad tiro badan. runtii waxay baaritaan ku sameeyeen dad ka badan 50 qof, laakiin wax natiijo ah kama aysan gaarin. waxayna u muuqdeen kuwo mas'uuliyadda iska ridaya, dadkana tusaya inay dadaaleen laakiin aysan waxba helin. waxaa la aaminsanaa dilkan inuusan wax xiriir la lahayn weerarkii bil ka hor lagu qaaday Jamie iyo Mary. laakiin 3 toddobaad kadib waxaa dhacday arrin hurdada ka hadisay booliska iyo shacabka magaaladaba. 14 bisha Afraad isla sanadka 1946 boolisku waxa uu mar kale ku war helay 2 meyd. waxay ahaayeen Betty Boker oo 15 jir ah iyo Polly Martin oo 16 jir ah. habeenkii ka horreeyay dilkooda waxay ka qayb galeen xaflad ardayeed, waxayna ka rawaxeen 1:00 habeenimo ama 7 saac iyo bar, hadba sida aad u taqaano. Paul waxaa laga helay meel wadada ka leexsan oo ay ah, madaxana waxaa laga dhuftay 4 xabo oo rasaas ah. 1 kiiloomitir meel u jirta kaynta bartamaheedana waxaa laga helay meydka Betty oo madaxa laga dhuftay 2 xabo oo rasaas ah. arrinta koowaad ee boolisku ogaadeen ayaa ah in labada qof dilkooda loo adeegsaday bistoolada nooceedu yahay Colt 32, waana isla noocii lagu dilay lamaanihii aynu ka soo warranay ee Richard iyo Polly.
sidoo kale 2 bilood gudaheed waxaa dhacay weerarkii saddexaad oo lagu qaado lamaana isqaba ama isjecel. booliska iyo bulshadaba waxaa u caddaatay in dhacdooyinkani ay isku xidhan yihiin uuna ka dambeeya hal qof ama hal koox. cabsida ayaana si weyn ugu faaftay magaalada, si gaar ah da'yarta iyo dadka jilicsan. marka ay raggu shaqada aadaan, dumarka iyo carruurtu waxay ku sugi jireen hoteelada iyo maqaayadaha magaalada, gaar ahaan hoteelada caanka oo loo yaqaano Grim. dadka aan aadi karin hoteelada waxay adkaysteen ammaanka gurigooda, hub ayay gateen, ciida ilaalada ayayna keensadeen, waxayna ku dadaaleen xidhashada albaabkooda oo lagula ballamay inaan laga furin qof aan la garanayn. suuqyadu waxay noqdeen kuwo bannaan, inta badan cabsiduna waxay noqotay wehelka cid walba oo ku nool magaalada Tuscana. wargeys lagu magacaabo Ghana Gazette ayaa dilaaga u bixiyey Phantom Killer oo macnaheedu yahay dilaaga dahsoon. mid ka mid ah baarayaasha gacanta ku hayay kiiskan ayaa sheegay in xarunta booliska ay kusoo dhici jireen taleefanno xad dhaaf ah siiba xilliga habeenka. qof walba oo arka qof uusan garanayn waxa uu soo wici jiray booliska, qof walbana waxa uu cabsi ka qabay inuu noqdo qofka xiga ee la dili doono. waxaa la soo gaaray 3 bisha shanaad, nin beeraley ah oo lagu magacaabo Virgil Stars oo ku sugan gurigiisa iskana dhagaysanaya raadiyo ayaa daaqada laga soo toogtay. xaaskiisa Kitty ayaana ka soo orday qolka jiifka, waxayna u timid odaygeeda oo dhiig baxaya. hubsiina la'aan ayayna albaabka u furtay si ay dariska ugu qayliso, laakiin nasiib xumo waxaa ka hor yimid dambiilaha oo dhinaca albaabka u soo socda. waxayna isku daday inay guriga dib ugu soo laabato, laakiin nasiib darro 2 xabadood ayuu ku jiiday. dhaawac fudud ayaana soo gaaray, waxaana u suurta gashay inay albaabka ka soo xirato. dambiiluhu muddadii uu waday isku dayga albaabka Kitty waxa u suurta gashay inay daaqada jikada ka boodo, waxayna u gudubtay reer deris la'ah, waxaana loola cararay isbitaalka. ninkeeda Virgil wuu dhintay, laakiin iyada ayaa badbaaday. cabsida laga qabo dilaagan halista ah darteed, in ka badan 30 askari ayaa loo diray goobta uu dilku ka dhacay, waxayna bilaabeen inay ururiyaan caddaymaha ayna ka dhageystaan deriska wixii ay arkeen. baare lagu magacaabo Johnson ayaa sheegay in dadku ay qoryo la taagnaayeen albaabkooda, ayna qofku weydiinayeen inuu sheego cidda uu yahay, haddii kale ay tooganayaan. goobtan boolisku waxay ka heleen raadka dambiilaha, markii ay raaceenna waxa uu la galay jidka weyn ee laamiga, halkaas ayna ku waayeen. boolisku waxay ogaadeen in nooca bistoolada loo adeegsaday markan ay tahay Caliber 22, uuna ka duwan yahay midkii loogu geystay 2 dil ee hore. sidoo kale dhibanayaashii hore waxay ahaayeen lamaanayaal dhalinyaro ah oo bannaanada laga ugaarsaday xilli habeen ah, halka Virgil iyo xaaskiisa Kitty ay ahaayeen dad waaweyn oo maalin cadday loogu yimid gurigooda. inkasta oo kiiskani si weyn uga duwan yahay kiisaskii hore, haddana boolisku waxay ku darsadeen galka dambiyada dilaaga dahsoon Phantom Killer. waxay u muuqataa in kiisaskan ay faraha ka baxeen, sababtoo ah dhammaan dadkaas la dilay ama la dhaawacay lama caddayn karo cidda soo weerartay. booliskuna waxay bedeleen qorshihii baarista, dharka shacabka ayayna qaateen. askari walbana waxaa lagu daray askariyad, waxaana loo diray baararka iyo meelaha lagu caweeyo si ay u ugaarsadaan dilaaga dahsoon. 2 bilood ayayna qorshahan wadeen. dilaagu marna ma soo muuqan, mana geysan weerar cusub. sidaas darteed cabsidii dadku xoogaa ayay hoos u dhacday, waxayna dib u bilowdeen noloshii caadiga ahayd. taxadarkii iyo feejignaantii badnaydna meesha ayay ka baxday. boolisku waxay sheegeen in dilaagu uu 2 midkood noqon karo. kan hore waxaa lagu magacaabay H.B. Doty, waxa uu ahaa arday jaamacadeed oo la helay isagoo isdilay, gacantana ku haya warqad uu qoray inta uusan isdilin. warqaddu waxay u qornay sidan: ma rabtaan inaad ogaataan sababta aan isu dilay? ii aamina, haddii mid idin ka mid uu dilo lama lamaane sidoo oo kale ayuu isku dili lahaa. haa, aniga ayaa dilay Betty iyo Martin. habeenkaas sidoo kale Virgil aniga ayaa dilay, laakiin xaaskiisa ayaa iga badbaaday. Doty in adeerkiis oo ahaa dhakhtar cilmi nafsiga bartay oo lagu magacaabo John Tenson ayaa sheegay in Doty uu noqon karo dilaaga dahsoon, sababtoo ah xiriir ayuu lahaa dhammaan dhibanayaasha. wuxuu ka shaqayn jiray shaneemada ay ka soo bixeen lamaanayaashii la dilay. sidoo kale waxa uu iskuulka la dhigan jiray Betty, halka qoyska Virgil ay ahaayeen keliya dad is-yaqaana. booliskuna waxay tilmaameen inuu yahay eedaysanaha, balse aan lahayn caddaymo ku filan oo sheegaya inuu yahay dilaaga dahsoon. sidoo kale warqadda uu qoray waxay caddayn u noqon kartaa inuusan ahayn dilaaga dahsoon 2 sababood dartood. tan koowaad waa inuu yahay dhibana la mid ah kuwii hore, dilkana uu filiyey dilaagii laayay dadkii ka horreeyey. tan labaad, dadka geysta dilalka xiriirka ah waxay ku raaxaysteen dilka iyo inay cabsi ku abuuraan bulshada, mana fududa inay isdilaan si dadku uga nasto. ninka labaad ee uu boolisku sheegay inuu noqon karo dilaaga dahsoon waa nin lagu magacaabo Lee Sweeney, waana 29 jir. markii ay dhacayeen dambiyada dilku
askari ka shaqaynaya Arkansas State oo lagu magacaabo Max Stark ayaa sheegay in mar walba oo dil dhacayo in la diiwaan gelin jiray gaadhi la xaday marka dilku dhacana ay ka heli jireen meel cidla ah. markii aan dabagalnay xiriirka ka dhexeeya baabuurta la xado iyo dilka waxaan helnaa gaari la dhacay 28kii bishii 6 oo looga tagay garaash magaalada dhexdeeda ku yaal. baaritaanadu waxay ku dhammaadeen haweeney lagu magacaabo Peggy Sweeney oo ah xaaska uu qaba Lee Sweeney. markii aan xirnay waxay sheegtay in ninkeedu yahay dilaaga dahsoon uuna ka dambeeyo dhammaan dilalka. haweeneydan warkeeda inkasta oo ahaa mid iska hor imaanaya haddana waxay sheegtay calaamado aysan suurtagal ahayn inuu garto qof aan goobjooga ahayn amaba aan dilaaga ahayn. boolisku waxa uu go'aan ku gaaray soo qabashada Lee balse nasiib darro gobolka oo dhan ayuu ka maqnaa. muddo kadib ayaa la soo xiray isagoo ka yimid stateka Atlanta isla markaana wata gaari uu soo xaday. Lee wuu inkiray inuu ku lug lahaa dilalka dhacay wax faahfaahin ahna ma bixin. baarayaashu waxay go'aansadeen inay ku mudaan irbadda xaqiiqdu waxay ahayd daawo qofka lagu mudo ka lumisa kantaroolka kana dhigta mid sheega wax walba uu og yahay. nasiib darro Lee waxaa lagu muday qadar badan oo jidhkiisa uusan u dulqaadan karin waxa uuna galay suuxdin dheer. Lee irbad dambe laguma mudin waxaana toos loo geeyay maxkamadda isagoo ku eedeysay inuu yahay tuug si joogta ah u xado baabuurta. waxaa lagu xukumay xabsi daayin balse waxaa la soo daayay sanadka 1973 kadib markii maxkamad ku taala Texas ay go'aamisay inaan qofkan lagu xukumi karin xabsi daayin maadaama uu gawaari xaday 30 sano ka hor. Peggy iyadana waxaa lagu xukumay xabsi kooban maadaama ay Lee kala shaqaysay dhaca gaadiidka. dhaqso ayaana loo sii daayay. wargeyska Texana ayaa qoray in dilalka lamaanayaashu ay cabsi ku abuureen shacabka balse waxaa laga faa'iiday foojignaanta oo badatay iyo isku xirnaanta bulshada oo siyaada. sidoo kale waxaa si weyn hoos ugu dhacay falalka amni darro ee gobolka. su'aasha kaliya ee aan jawaabta loo helin waa qofka uu yahay dilaaga dahsoon waana hal xiraale aan weli la furin oo aan uga tagnay jiilasha soo socda.